السلام عليكم أصحاب تقاليدها والسلامتي مeel kastoo joogtaan maanta waxaan idiin wadaa part 2ga lagu caateynayo caloosha ama jirka oo dhan oo yacni white-ka lagu ridaayo insha Allah meeshan waxaa iigu jiro 2 xabo oo qajaar ah iyo 2 xabo oo tufaax ah iyo 1 xabo oo liin dhanaan ah maxay ahaato maasha Allah tabaarakallah alaabtan alaab inaba caadi ma ahan haddii duhurkii oo kale marka cunto kadib cabto exercise yarna ku darto maasha Allah tabaarakallah waa ka soo qayli doontiin waxaan hore u soo galiyay maxay ahaato part 1ka oo aan ka sameeyay liin dhanaan iyo dangawiis ama sanjabiil aan isku kariyay ahay maxay ahaato hadda naftirkeeda halkan sanjabiil waa ku darsan kartaa haddii aad haysato jab yar oo sanjabiil waa ku darsan kartaa أنا هذا ما هيستو لكن واحد مشكلة ما لهن وأنا كم مرنتا وأنا أقدر سنكرتا ومر والبأسق وفائده دي قعدنا وصفينا يا ويت كانوا وردا سنجبيلك مركا إن هدا هي ستيد ويكسي في عنتها هل حبة أو قجار يجيب سنجبيل لو حبة تفاحة عجارن وتفاحة عجارن أو لو حبة يا هل حبة لين هدا إيش قسم يسطو ما شاء الله تبارك الله إن هذا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول بالله من هدو ليرة qajaarka hal xabo iska celina insha Allah taala intaana enough intaana u baahanahay waxaan sameeynaa marka insha Allah waa jarjarneynaa insha Allah kabacdina waa la isku shiidaa waa juice yar oo maxay ahaato wax sokor ahna ma u dhaweynaysid wax sokorana ma dhaweynaysid sokor la'aan cabaysaa qolofkiisa ina ku shiidato waa ma sha Allah waayo qolofka maxay ahaato faa'iido badan ku jirto laakiin waa ina si fiican isaga dhaqdo oo kaliya maxay ahaato mar hadaa si fiican u nadiifiso waa caadi qolofkiisa ina ku shiidata beel haddii aad tiraa qolofkan fiiqaya wax badan oo faa'iido ma helaysid ama nuxur badan ma lahan inta yarta oo cadka ay muhiim ah kaligeed si kastaba ay ahaato qudaarta waxay ku fiican tahay in qolofkeeda aanan maaragtay la tuurin oo lagu isticmaalo wax ka wanaagsan ma lahan waxaan arkayso oo aad u badan yahay waa hal xabo bas sababtoo halka badan marka ina isticmaasho waxa wax aad u badan ay ka noqonaysaa ina waxa oo fresh ku shiidatana waxay kaga fiican tahay ma lahan marka maxay ahaato liinta ayada xataa qolofkeeda lagu shiidaya بدنا بسم الله مراها بس كبحين صوبتها مراها مشينك ويكون لنا على الحق ولا دي معايا من عودك الجاوي إن شاء الله بس أقول جرى سالينتا قلف كذا يا يدو أصلا صعطة sasa ugu jarane بسم الله way adag tahay baasha in hadaada yaryareen oo miraha aad ka bixinin mishinta way ka haleynaysaa tufaaxa saasa dhaxda miraha uga bixinaya asagana si oo mishinta kaaga hadlaynin الحبة كان جرجرة يا إن شاء الله كدبنا
makiinadan ku shuban doonaa insha allah waqtaas asxaabta saasa oo jijaray waa ujeeda ma sha Allah tabaaraka Allah suuq soo baxay qurux sharaxadu ku fiican yahay waxaan sameynaa hadda marka insha Allah mishinta ku shubaneynaa markaas ma sha Allah mishintan ku shubay waxa ku darsanaa marka hal koob bas oo biyo ah waa hal koob oo biyo ah waxaan ku darsanaa wax yar oo baraf ah badnaan enough insha Allah asxaabta waa kaasa waa soo miiray ma sha Allah tabaaraka Allah wuxuu noqonaa cagaar ay noqonayaan ma sha Allah laakiin waa alaab caraf badan ma sha Allah tabaaraka Allah inkastoo cabista kuma macaano laakiin inkastoo dhanaan iyo liin ay iska tahay hadana laakiin akasa qashir badan oo waxa waaye ka baxayo biyo marka waxa ku soo haraayo oo color nadiif ah ku soo haraayo halka koob hadda laba koob camal oo ay noqdo ma sha Allah soo kaasa asxaabteeda intaas idin share gareynayay hadii aad ka heshaan muuqaalkan waad ku mahadsantiin daawashadiina waxaan idinka ilaahay insha Allah ha iloobinaha subscribe iyo share ina dhahdaan insha Allah waa no video dambe oo xiiso leh biidni Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh